gabaygan soo socdaa wuxuu ka sheekeynayaa waa uu u dhiirigelin bulshada wuxuu kaga sheekeynayaa dad hurda oo aan ogeyn weligiin adinku ma aragteen qof dad daawanaya filim markay dhasheen la jilay hadda waa markii dhasheen la jilay markaas wuxuu rabaa inuu jiif ku daawado anigu waxaan iska daayay nin baa ii sheekeeyey filim baan tusay macnaa anigu waxtan igu jiro malay maayo laakiin waxaan xasuustay inaan kala sheekaystay markaas wuxuu yiri filimka 97 soo baxay waxaan ka xumaaday dad aan aqaan hebel iyagu daawanayna arkay anigu filmaanta ma jeceli horta laakiin waxaan la yaabay filim 97 soo baxay ma yaqaan ninkan markuu soo baxo iska daawanaya waa marka wax laga murugoodo weeyo marka gabaygan wuxuu yiri hadii aan faalay gabay tirshoon soo furfura maanta oon fiirsho iimaha jiroon faala dheer bixiyo inaad faaqidaan baan rabaa wad fasirataane facood qoonka haraba u daran duul dhama fiday cirka jaranjar fuushay qalqigu faraha saareene fiinta sare kuwii tagayna waa farax ciyaaraane asaageen dayaxa buu filiyo fooq ku leeyahay doqon fahan la mooyee ma harin ruux fariid iyo fadhigay ka kacajiifkan baas horumar waa faane fanka lumay fidnada taagan iyo faasuqiyo inta xubna faydka been faafinta iyo baraku faanfaanka anaa faxan anaa fiicanta iyo faaqda iyo beenta waxaan jaahil falin baad fasheen kuna fogaateene waxaan filayay khayr faafin iyo fiira dheernimo waxaan filayay fogaan aragnimo iyo xeelad faraweyne waxaan filayay suugaan facweyn fahan ogaanteeda waxaan filayay falal suuban oo uunku faajaco ha yeeshee waxaad fiirsatiin fiidiyo u tagay fadhiga ka kacajiifkan baas horumar waa faane fadhi nimaan ka kici hayn fardiya geel ma foofsado intaan footo iga qaaday iyo filim ku sii jeednay meel fog buu asaageen tago filashadiisa gaari barbaa faylasuuf ah oo ra'yiga fiican soo qora ciyaalkeena la mid ahaa waa laga heebaystaa waxaa la yiraahdaa waxay horgeynayaan baarlamaanka wadankaas inay waxaan shaqay karaan intay qaacidooyin soo qoraan annaguna waxaan leenahay commentaan ka caayana kuweeni fadhi nimaan ka kacay fardiga geel ma foofsado intaan footo iga qaaday iyo filim ku sii jeednay meel fog buu asaageen tago filashadiisa gaari barbaa falaga meera barbaa faylasuuf oo ra'yiga fiican soo qora barbaa falaga meeray dayaxa faaliyo tagay fadhigii ka kacajiifkan baas horumar waa faane kaasna intiisa uu ku anfacaya jidooyinkiisu waxaan u malaynayaa macnaha inuu gooni loo furfuro u baahan yahay laakiin gabayada humaaga leh ee aan waxba wax naxweysan ku jirin waxaan isku dayayaa in aad mirihii daraga ka dhigataan gabay waxaa ku xijinaya la yiraahdo afkala qaad jacbur madadaalo ah waa gashan doonaa laakiin aad waxaan u doortay anigu inaad gabayada taqaaneen aan xagga dhigto waxaa laga yaabaa munaasabado badan ka qayb galo inaan jacburka tiriyay jacaylka tiriyay laakiin maadaama bandhiga uu ku yimid doorasho hangobad iyo doorasho day ah in aan anigu waxaan isku dayayaa waxyaabaha aan ku hamiyey inaan gudbiyo haduu ilaahay yiraahdo gabaygan dhowr iyo 10 waji buu ka hadlayaa ay ka mid tahay waxa ugu weyn oo Allah ka cabsiga wuxuu ugu weyn yahay dad isdilaya ayaan nahay dad aan wax iska qaadan baan nahay dad aan xoog isu dhiirigelin baan nahay wuxuu yiri isla weynidiyo aabigiyo aniga baa saan ah aadanaha kii lagu arkay anafka si taaga aakhira cadaab buu galaa ololkii naareed adduunkana dadkii eheladiis ma ixtiraamaan is ogaada aayaduhu waa eray tusaalaha qofka hadduu isla weyn yahay laba marba ma liibaano adduunkana dadkiisa ma ixtiraamaan waxa la war hebel waa isla weyn inuu naga daayo oo halkaas ku haraysa waa lagu sheekeysanayaa aakhirana waa ku kayd gooni ah intuu ood ka boodo nin yare tala il duufaayo xaajadii adkaataba haddaan odayo loo geynin ee ruux waliba say ula eg tahay oo isagu yeelo ahaan mayna saan eeganahay ee la ogaado talada waxaa laga qaataa odayaasha ayaa looga dambeeyaa oday kaliya ma ahan inuu konton jir yahay qof kasta ugu ka weyn garaad ku dheer baa la yiri wada ruuxi soo maraya laga waraysaa qofku marka uu ka waayay aragsan yahay
dhibaatooyin kuwa aad soo martay ka badan buu soo maray waxaa loo baahan yahay in adigu bal tiraa warnigu arrinkan ka waran haddii soo martay wuxuu ku siinaa taba iyo xeelado asagoo uga soo badbaaday adna halkaasaad ku badbaadaysaa laakiin haddii qof waliba say ula eg tahay oo isagu yeelo warni ordayga tag buu qofku leeyahay war qof aa wax u sheegi kartaa ma jirto nin saaxiibkayo abaan cariis la yidhahdo wuxuu yidhi yac qofkaad yac midkaa tiraahdo aduu yac ku leeyahay qof markaa tira war waxaan ka joogtana yaa kula maxaa tiri kusoo abraaraya ka waran malabkay shinnidu ururisee uunku garanayo intifaac waxay leedahay loo ogsoon yahay udug iyo macaan weeye iyo daawo aaminaha aqash iyo ufkii oranayaan loo itaal helina axmaq weeye laakiin mid baan ku agdhigayaa arrin xumo abaar iyo ka daran oo mase jiilaale dad dhan oo abwaaniin leh iyo odayo sheekeeya oon erey ka dheegin aqliga waa ka ebarkood faylasufyada adii sheegayay moogtahay in la raadsi u baahan yihiin ee dadka talooyinka haya laga qaato dadka faylasufyada ah wax laga dhegeystay la warnamay maxaad haysiin afrikiya adduunyada markaad saa u wada eegto aayahooda way garanayaan idin lahaantooda itaalkaan lahayn taakula lala ag joogaa erey kii yidhahday dhigaan u alalaasaana innaguna qof shay soo ukaan ku orinaynaa dadka waxaa jira alalaas iyo orin waa laba erayoo cagsi isku ah qofka waxaa loo alalaasaa marka uu wax fiican sameeyo hooyooyinka yaqaana ilmuhu markay wax ku guulaystaan iyo aroosyada iyo waxaa la sameeyaa alalaas baa la yidhahdaa waa loo alalaasaa qofka dhiirigelin weeye waxaa kasoo horjeeda oris ku oriya qofka la yidhaha waa caafiya waa u dhamaata qofkaas waa qof kaarkiisa gubtay macnaha wax uu yidhaha lagu oriyo haddaad mar wow maqasho xoolo kuma dhaqna afrikiya adduunyada markaasaa u wada eegto aayahooda way garanayaan idin lahaantooda itaalkaan lahayn taakula lala ag joogaa erey kii yidhahday dhigaan u alalaasaane innaguna qof shay soo unkay shay hal abuur dhan buu la yimid waxaa laga yaabaa inuu wax kan nagu soo kordhiyo markaasaan leenahay laa ilaaha macaagadan caafida intaas la egu samaynayaa annaguna cagshan la biyo ka cabayna ma eegayna anagu wuxuu soo sameeyey 4 midda xataa ma samaysan karno annaguna qof shay soo unkaan ku orinaynaaye anaaniya dil iyo boobna waa ku istareexnaa bal inuu ajiibaa dhacday aan allaha toogno استغفرت روحي بدسان دب u iimaanayna albaabadaasan buu eebahay ku aftaxayay irid aadan filanayna wuu ka arsaqayay xaaraanse ruux alamsada ay beel noqoye eel kaba wax dhigay baa jiro waa aqoon xumi mahmaah awaa'il hore sayna oranaysay awrka dambe ka hore saanta waa uga akaaday waalidkana wixii lagu arkay ubadku suubshaan anshax lagu barbaariyayna waa ku aqliyeystaan haddaan la idbin eber weey oo arima dhaamaane u iftiin shay waa dambayna anfacayaan waxaa la yidhi awrka dambe labada awrka dambe midka hore socodka waa kaga daydaa baa la yidhi marka waxaa la mida dadka say jiilal u kala yihiin awrka hore awrka dambe ka hore socodka waa uga ekaadaa waalidkana wixii lagu arkay ubadku suubshaan war adigu maxaa samaynaysaa wey adiga wixii lagaa arko ay ubadku suubinayaan tuqsiga halkii in leh iyo eegta meel darana wax ilaahay maanacay qofkii ka astaxyoon waaye abaalkiisu waa naar jannana sarki maayaan cilmul qeybka eeba ogo taa awood u lahaa aakhira wax yeelana ma jiro ruux oo dorasaaye faal ibliis nin dhigay oo dhulka farale aaday shay ogaan karayaan cid aqoonayni wuxuu ka astafiidana waa alanqa naareed qof baa wuxuu ku leeyahay waxaan misaadaalinayaa arrin hiblaayo roob da'aya qof dhimanaya ma garanaysaa nin baa laba nin hadda hor saas oo kale isugu dhaardhaaratay oo yiri nin baa faalan ku dhigayo hebelo waxaas ku soo baxay buu moogta god xuna midna u soo baxay ugu dambeystii marka wuxuu yiri curaafiyay sataya faal nin dhigay heega ka celiyo yiri moogta niman aaminsanayn ba faalka iyo waxaan curaafiyay sataya faal nin dhigay heega ka celiyo marka inay wax tarin buu ogaa ninkaas cilmul qeybka eeba ogo taa awood u lahaa aakhira wax yeelana ma jiro ruux oo dorasaay faal ibliis nin dhigay oo dhulka farale aaday shay ogaan karayaan cid aqoonayna wuxuu ka astafiidana waa alanqa naareede agab ma aha diintuna qof iyo urur leeyihiin mana aha awaal mala ah iyo hebel oraahdiisa waa aayadatu salooyin qowlka eebaha ma ahan quraanku iyo aayaduhu wax sidii raba laga yeelan karo oo anigu marka irida ka soo baxon ku fal idil shakara maxaa ku ftaliileeyahay ma ahan ururna male qofna male yaa leh hadaba agab ma aha diintuna qof iyo urur leeyihiin mana aha awaal mala ah iyo hebel oraahdiisa waa aayadatu salooyin iyo qowlka eebaha
ruux ooman oo ila biyo leh aagga laga geeyey adimadana qaba ama fiyow cudurna aafaynin oo aan afkaba saarin oo aan asqada reebin wuxuu ugaga jeediyey dantan cidi aqoonayni axmaq weeye laakiin mid baan ku agdhigayaa dad dhan oo ilaahay jirsho oo arlada keenay ummad diin islaam haysatana laga ahaysiiyey oo nabina loo soo arsilay wax u iftoonaya oo faralka oogoo la yidhi tiisa u ekeeya misna aan intaas qaadanay oriya been mooda oo dhiig islaam daadisee alabastee roorta ambad weeye oo meel xun bay ku ajarmayaane bal u fiirso saan eeganahay waa ayaan xumey allahayow dadkaygii isnacay waadna aragtaaye ilaa iyo markaan imid ifkiyo eegga iyo maanta isdil iyo anaaniya dhacbaa loo ordahayaaye ehelnimadii waa laga tegiya ina adeeroowe amiir lama qadariyey dadkay shacabku eegtaane askar lama sharfiya ciidan iyo niman ilaalaay oday lama salaamiye nabadda kaa soo abaabule abwaan lama dhegaystiye afmaal eraya waaweyn arxanli-ida ii muuqataa waa afkala qaade hadba waxaan la ooyaa dhib iyo arami joogtaaye allahayow ahow waad kartaa ama awoodaaye ammaan iyo arlan doonayaa nabada iyo boowe adiga ajiiban ducada ahay addoonkaaye isu soo dun maankeenna oo ururi taagteenna isu soo dun maankeenna oo ururi taagteenna meelaha dambe waxay tilmaamayeen in dadka la sharfo dadka ay tahay in la sharfo ow waa macallin ow lama qadi ow lama xurmeeyo iyo wadaad diin islaam wada askar lama sharfo oday lama salaamo abwaan lama dhegaysto intii oo dhan dhinaca laga maray markaasa waxaa la rabaa in haddana la toosnaado waana waxaan suuro gelin afkala qaad gabayo fara badan idma sheegin gabayadu xilliyada soo baxeen ujeedadoodu xilli kuma xirna maadaama aysan dhacdo ka hadlayn weligeeba ma jeclayn gabay dhacda la jaan qaada maadaama uusan murti noqonaynin macnaha haddii dhacdo taariikh uu yahay haa markii si fiican oo farshaxmaysan looga taariikhayo laakiin markaad dhacdo kooban shil ka samayso shilkiina waa tegay laakiin waxaan jeclahay gabay jooga inaan shalay sameeyey inaan daraad sameeyey in isula kaymid noqdaanba mar kasta jeclahay gabay qalbi dhaye aan u bixiyey kan waa idiin sheegayaa 3 sano ka hor aan sameeyey ma duubin anaan ugu talagalay laakiin waan qoray gabaygan qaybaha hore wuxuu ku sheegayaa dadka gabayada lagu qaloonsho qaloomis ma taqaanin marka badanaa waxaa loo adeegsadaa waxa lagu qaloomiyo xoolaha marka neef geela la rabo in maraq la siiyo kale waxaa la sameeyaa xeero kale inta maraq fara badan lagu soo shubo ama dhiig xataa waa la siiyaa xoolo la siiyaa jira oo afka la qabtaa lagu qasbaa lagu qaloonshaa moogta kadibna sidriqisaa lagu siiyaa oo lagu daweynayo waxaa soo baxay gabayo dadkii lagu qaloominayo qof baa inta gabyo iska anigoo kala miskiina wuxuu leeyahay oo maanta oo dhan gabigu leeyahay gabayadeeda hal xabo maxaa looga xafidi waayo maxaa gabayadeeda loo dhegeysan waayo waxaana laga yaabaa wax la dhegeysanana masraxa keenin marka wuxuu yiri xigmad marka qaacidooyin gabaga u baahan yahay laftirkiisa dhaliil kaliya kuma aan dhaliilin hal abuurleydii waxa talooyin ka siinaya meeshaas fikirkayga ah wuxuu kaloo sii tilmaamayaa gabagu mahmahooyin fara badan oo ay ka mid tahay wax qabsigu waxaa ku jira gabaygan sheekooyin aad soo xasuusan doontaan marka aad aragtaan oo midnimada ka hadlaya xigmad iyo tix aan lagu qadarin erayo qiimaysan oo laga qawado baa dadkii lagu qaloonshaay markaasaa la leeyahay qabto qaati oo fuliya qalbigaas uga sii jabay kuma qaboobaan hadduu gabay mahmaah qira leh iyo qowl murtiya waayo waa laga qashdhacayaa dadkuna uma qushuucaana sheekana markii loo qadimo quruxo waa muush gabayga waxaa fiican in lagu daro tala ahaantayda aniga murti mahmaah iyo sheeko saddexdaas haddii laga dhex helo gabaygu wuxuu noqonayaa gabay lala qabsanayo oo ama la qaban karo la xafidi karo ama marka la dhageysanayo la fahmi karo hadduu gabay mahmaah qira leh iyo qowl murtiya waayo waa laga qashdhacayaa dadkuna uma qushuucaana sheekana markii loo qadimo quruxi waa muushe anse inaan qaryaan ahay ma aha qaybay maansada intuu qaadir ii dhiiba baan qalad ka dhowraayo aan qutumiyo caawa kaloo qiimo leeyahay meesha marka inaanan liftirkaygu aanan ahayn caanamadaadshe ayaan markasta sheeganayaa
marwa qurux leh eebaa quwo leh qanacna diintaa leh dab baa qiiq leh daad baa qulqulan dhaxan qabow baa leh shida qoof leh gabay baa qasdi leh khayrna nabad baa leh dux baa qadan leh caanaa qabow qalaasho geel baa leh dhismaa qaab leh qoori baa biyo leh qaadis marin baa leh eebbaheen wuxuu noo qabtaa qiiradii shagshaag leh qorshay noloshu leedaa jiriya qaabab iyo xeere ku qoodeeya meel buuna yidhi qeex iyo mawluhu iyo qorijab iyo qardajeex qofkii mara khasaarooye qumanaada soomaaliya weydin qabataaye waddadu marka ay sidaa u baxdee la qaado waxaa jira waddooyin yaryar ee ka leexda oo haddii aan la marin geeda kusoo jabaan geedahaasi marka ay xaabo iyo qoryo noqdaan waxaa la yidhaha qorijab qofkii ku leexda inuu kurtuumado iyo qodax muddo bahalqayno halis ugu jiraa haddii ka waranta waddo sax ah lagu tilmaamay adigu aad ku leexato waddo kale fiir marta inaysan meeshii ku geyna waa dhici kartaa in bahal ku qanina waa dhici kartaa in kurtuum ku mudana waa dhici kartaa intii oo dhan halis ugu jirtaa qorshayno marka nolosha qorshe laga dejiyey in anagu sameeyna ma ahaan waa in sidaan ku qurxunta hadba ku dayda waa waxaan ku daalnay hadba ku dayda aan ka dayno oo aan raadino meesha ay ku jirto qorshe noloshu leedahay jiriya qaabab iyo xeere ku qoodeeya meel buuna yiri qeex iyo mawluhu iyo qaata diinta iyo buuna yiri qowlka nabigi sallallahu alayhi wasallam qorijab iyo qardajeex qofkii mara khasaarooye qumanaada Soomaaliya weydin qabataa qofka waxa la yiraahdaa dadka qaaraanka laga qaadayo yaqaana waxa uu leeyahay $10 lima dhiibi kara marka waa ku qabataa lagu sheegaya sababtoo ah shaqooyinka ay waxa qabataa la yaqaana ya marka haddii nimca lagu siiyo waa ku qabataa macnaha inaad ilaahay wax ku siiyo inaad caabudo waa wax ku qabtaa qof qaawano ku kale qayd dharo qaryo siin waay rabbi baa naflaha qoodin kara waan qiraya ay qayrkiisa kii tuga waa tacab qasaara mahmaadan waxa maleynaa inay ahayd laba qaawan isma qaado mahmaayin badan asaasan adeegsanaya qof qaawan oo ku kale qayd dharo qaryo siin waay waa dadku muugtahay qofba qof kale wax ma tiri karo ilaahay baa laakiin qofkan baa haysa tiri kara marka laba qaawan isla nahay dad bini aadan isma qaadno qof qaawan oo ku kale qayd dharo qaryo siin waay rabbi baa naflaha qoodin kara waan qiraya ay qayrkiisa ku tuuga waa tacab qasaara